labada dhalinyaro waa la soo qalday mashruuc loo soo fikiray in shacabka Soomaaliyeed lacag looga qaato oo been ayaa loo dhiibay midna waxaa looga dhigay agaasime midna waxaa looga dhigay afayeen maanta midkii agaasimaha xalay wuu calacalay wuxuu yidhi arrinkaana waa lagu qalday ma ahayn inaa qabto Soomaaliya igana noqda aniga miyay agaasimaha dadka dhintay dadka lacag ka aruriya kan afayeen waa kan afayeenka ugu adag wuxuu leeyahay isaga lacagtii la furo iyo midda ala furo inay soo cadeysaa bal fiiri nimankaa shaarkoodii wasaq ayuu yeeshay ragga gadaal laakiin oo filimkan soo bilaabaya waa dad waaweyn oo iska ilaalaya ceebta bulshada Soomaaliyeed ilmaha yarka waa la soo qalday barnaamijkan waa loo dhiibay Allah ku hadla gudbiib inuu soconayo Soomaaliya mar walba barnaamij ayaa loo keenaa ku socodsi inuu ku soconayo maalmaha lagu qaataa hore waxa uu arkay in baawar socdaan imaanayaan oo caafimaad ka baara ku dhaasan doortuur markii isbuuc soo filimkaas lagu fahmo oo dhamaaday hadda Soomaaliya waxa waaye ku socodsi barnaamijkan qaado maalmo inuu ku soconayo bal fiiri dhalinyaro ayaan akalka no face ee masaakiina waxba ogeyn rag gadaalka ku jirna wadada waaweyn oo xil waaweyn madaxa oo shaarku cad yahay dhalinyaradan shaarkooda uu gubtay agaasimaha xalay wuu calacalay oo dad badan ayaan habaar ku riday barnaamijkan qof dhinta iyo qof nool $10 ilmaha ayaan soo caday naagta afurta caday subhanallah war adduunyada waxaana kama jiraan adduunyada waxaan weligii wax dhaca maahan afyeenka sidoo kale agaasimaha labadaas dhalinyaro shaarkooda waa gubtay maanta bulshada maanta sumcad kuma laha maanta magaalo ma lagu karaan laakiin rag gadaale oo siyaasiyiinta nimanka waaweynka oo barnaamijkan keenay shaarkooda wuu cad yahay media way ka dhunteen dhalinyaradaani oo lacagtii yar la siiyay ayaa media lagu baadilaya oo leeyahay barnaamijkan kiciya hadla bulshada barsiya bal inay qaadanayaan bal ku daya bal fiiri inay qaadanayaan bal ku daya ayay noqotay Soomaaliya mashruuceeda barnaamijkan ninkan sana u soo qeylaayo ama inuu balaa u soo caawiyay barnaamijkan oo wata inay ku day yaa loo dhiibaa qof aan iska dhiibay hadal rag gadaal jooga siyaasiyiinta shaarkooda wuu cad yahay oo sharaftooda way ilaashanayaan bal fiiri dhalinyaradaani waa soo qalday ninkan aad buu u calacalay wuxuu yidhi waa la soo qalday ma ahayn inaa waxaa soo kale ka hadlo Soomaaliyeed iska cafiyo waalidiin badan ayuu guriga ku garaac shalay waalid meesha la guriga ku garaacay oo awood lacag ugu qaad bal fiiri ilaahay nagu dhaashay dadka Soomaaliyeed in markaana mashruuc lacag lagu qaada loo keeno markaana uma baahna wuxuu baa markaa in loo dhimriyo in wadooyinka jaamka laga furo in biyaha wasaq dhulka fariisana biyaha laga dhuuqo u baahan yahay in loo dhimriyo in loo naxariiso uma baahna shacabka Soomaaliyeed markaan in ayaga dib jeebkooda wax ku jira oo baxo oo in mashruuc loo soo fikiro leeyahay ku day inay qaadanayaan mashruucan bal isbuucan fiiri mashruuc walba la keensan waa fashilmaa laba bir ayaa lagu qaataa Soomaaliyeed aqra ayaa jirta dalkan dawladda isku sheegaya weliba dhalinyarada yararka inay u soo dhiibaan mashruucan ku daya bal ku day inay qaadanayaan ilaahay laga cabsado dadka Soomaaliyeed uma baahna in markaana ayaga jeebkooda $1 ku jira in la raadiyo wariyaha soo moogadiin dada xataa maanta haddii qadahina maanta cashada xataa qalqiil ku jirto sidee marka ku diiwaan geliyo in ilmaha soo caday naagta afurtay ee kan cunug dhintaa soo caday lacag $10 tuur sidee qof miskiina oo maanta cashada aan gali karsan walaada mashruucaani dadka waaweynka soo dhiibay way si qaaneen ilaahay ka cabsadaan dhalinyarada maanta kaarka waa ka gubteen oo shaar ka gubteen nin walba mashruuc ayuu inuu u soo qeylo u soo fikiro ayuu leeyahay kaalaya ku day Soomaaliya waxay noqotay ku day in shacabka Soomaaliyeed in maanta wixii baahan loo dhimriyo ayuu nabadgelyo xumo haysto ayuu maalmo qarax iyo dil iyo dhibaato isku haysto iyo shiid iyo lacag la'aan iyo shaqo xumo iyo meel walba jid walba oo xiran yahay jigboonta iska wadooyin hal wada iska xiran biyaha meel fariisanayaan dhaqaale xumo ayaa dalka jirta misna jeebkooda ilmihi caanahooda ku jira ayaa waxaa in la baxo waxaas xaq ma ilaahay laga cabsado ragga dhalinyaradaana sharafta iyo sumcadda waa ka qaadeen oo maanta media waxay la soo horfariiseen naagtii la furana lacag ayaa laga rabaa yahoo war muuqaalka galay dawladdaana wixii waa ku day balaasha loo soo qeylay ku day inay shacabka qaadanayaan